وقليل أفكه يهو ملكاديو وقريها جا ملكاديو وقريها جا جاهلمو خداي جاهلمو خداي هو قليل وهجاجي بوكا هو قليل وهجاجي بوكا بدنا هو تلماتي هو تلماتي 22 bishii Oktoobar sanadii 1969 markii uu talada dalka Soomaaliya uu la wareegay Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre waxaa dalka laga bilaabay in dib loo soo nooleeyo qoraalka farta Soomaaliga si loo hormariyo bulshada Soomaaliyeed iyadoo 22 Janaayo sanadii 1970 la dhisay guddiga afka Soomaaliga kaasi oo uu dhisay xilligaasi golaha sare ee kacanka si ay u sameeyaan xarfaha ugu haboon ee lagu qori karo afka Soomaaliga taasi ayaa abuurtay ficil ay u wada riyaaqeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed waana tan keentay in sanadii 1972 markii uu ahaa sanadka in si toos ah loo qoro farta Soomaaliga raadu way rogrogantaa sida raadka gorayada waana raafe dheer tahay saada waxa ku garataa dhaxdu sariiq yar weeyaan surkeediyo salkeedu midba gees u seexda gaadu waa garaanaan afka la isu geyno qariyar hoosta kulaho isgodaysa weeyaan caada waxa ku garataa bisho caawo koowo soo caano shubato caawo dheerda weeyaan faada garo oo ii sheega magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka soconaysa diyaar garow ku aadan xuska 46 sano guuradii ka soo wareegatay markii la hirgeliyay afka hooyo sida laga dareemayo xafiisyada qaar ee dawladda Soomaaliya iyadoo sidoo kalena hirgelinta afka aynu ku hadalno laga joogo 45 sano Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in xilli kasta oo jireen dad Soomaaliyeed in uu jiray afka Soomaaliga balse waxa uu xusay in dhibaato badan oo aan la soo koobi karin laga soo maray qorista farta Soomaaliga afka Soomaaliga marka la yiraahdo inta qar jiray quruur xuu jiray bay Soomaalidu tiraa yani intay buur jirtay dhagxaan ku hoostaadsanna waa isku fac dad Soomaaliyeed intay jireen af Soomaaliga uu jiray laakiin waxa laga hadlayaa waa farta Soomaaliga qoraalkeeda sidaad ogtiin dib badan baa laga soo maray far Soomaalidu ay leedahay wax ku qorato waxa lagu dhawaaqay oo la shaaciyay 22 Oktoobar 1972 Soomaalidu far bay leedahay waa Laatiin dhawaaqeedu waa Carabi gudoomiye maax oo sii hadlay ayaa waxa uu sheegay in qorista farta Soomaaliga kadib la bilaabay in dhammaan xafiisyada dawladda kacaanka ahayd lagu baahiyo si shacabka Soomaaliyeed loo tuso qiimaha uu leeyahay in dal walba uu sare u qaado qorista iyo ku hadalka afkiisa waxa uu xusay in isla bishii Janaayo 22keedii sanadii 1973 uu soo baxay wargeyskii ugu horeeyay ee lagu qoro afka Soomaaliga 22 Janaayo 1973 bay arinta bilaabatay xafiisyada dawladdeena ka bilaabatay way dawladdi waa maamulkii Soomaaliya maamulku markuu afkii Soomaaliga ku soo baxay waraaqii wixii ay qorayeen markaas dadkii kale iyo shacabkii intiisa kale la gaarsiin kara isla maalinta waxa muhiim ah iyadan inay ogaataan wargeyskii ugu horeeyay af Soomaali ku qoran oo aan Talyaani ahayn oo Carabi ahayn oo Ingiriis ahayn oo afka hooyo ku qoran baa isagana soo baxay ugu dambeyntii Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah uu ka bixiyay waxa uu degan sanadan 2018 marka laga hadlayo munaasabada lagu xusayo qorista farta Soomaaliga marka anu waxa isleeyahay sanadkan waxaan rabnaa inaan haday noo suurta gasho oo sida hadda ra'yigeeyu ama qorshahan uu jirta ay suurta gasho in gaari aan wareejino samaaxado ay ku xiran yihiin oo hal ku dhagiyo afkii iyo dhaqankii iyo akadeemiyada waxyaabaha ay qabatay iyo lagu xarnay ay ka muuqdaan 22 bisha Janaayo oo ku beegan maalinta Axadda ah waxa Muqdisho lagu qaban doonaa munaasabad ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaana lagu xusi doonaa xilliga la qoray farta Soomaaliga oo xilligan ay ka soo wareegatay 40 iyo
aan ka barano afka Soomaaliyeed